haboon daawadayaal dhammaantiinba meel walba waa joogtaan iyo si walba muuqaalkeena idiin soo gaarayo halka kan waa Somali Freedom kusoo dhawaada muuqaal cusub waxaan ahay Idris Iimaan haddii Allah awoodda leh uu raali ka noqdo inta muuqaalkeena aad daawan doontaan waxaan isku dayi doonaa inaan kusoo koobno mowduuca ah dabcan wax akhriska iyo faa'iidooyinka ay u leedahay bulshooyinka caalamka ama si gaar ah wax akhrinta iyo bini'aadamka waxaan isku dayi doonaa inaanu dhowr meel wax ka eegno ama aan dabcan wax ka soo qiimeyno annagoo soo koobayna ama dabcan dhaalirinta barnaamijkeena uu noqon doono xagga Soomaalida iyo waxtarka akhriska wax akhrintu waxay ahayd welina tahay hab ka mid ah hababka ugu muhiimsan ee soo minguurinta caqliga basharkii hore taasoo ah tusaalaha ugu muhiimsan ee la soo qaadan karo akhrintu inay markasta aadamiga u tahay faa'iido weyn oo aan sinaba dabcan loogu qasaarinin dabcan tirakoob uu maxadka dabcan UNESCO u qaabilsan dabcan tirakoobka soo saaray ayaa lagu xusay war aan farxad badan wadin kaasoo ah in 757 qof oo qaangaar ahi aanay wax akhri karin waxna qori karin dabcan waxaa tirada weyn dabcan ka mid ah 115 milyan oo dhalinyaro ah oo 67 ay ka mid yihiin dabcan dumar xigashadan waxaan dib ugu celinaynaa dabcan dhiganaha caalamka akhriska ee uu qoray Cabdicasiis Guud Cadde oo si guud u soo koobaya heerka wax akhriska caalamka iyo heerka uu haatan ka joogo dunida dhinacaas fadhiga kan haddii Allah awoodda leh uu raali ka noqdo waxaan ku gorfayn doonaa wax akhriska Soomaalida iyo kaalinta maanfurka aadanaha waxaan igala qayb gali doonaa oo dhinacayga fadhiya Fuad Cabdirasaaq Gurey oo mawduuca kan aan u xulanay inaanu si guud wada gorfayno Fuad marka hore soo dhawow aad iyo aad baad mahadsantahay Idris waa dhawahay aad ma santahay dabcan barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay aad baad ula socotaa su'aasha ugu horeysa aan rabo inaan ku weydiiyo waa wax akhriska iyo sidoo kale dabcan waxtarkiisa aad baad u mahadsantahay marka la Idrisow marka laga hadlayo wax akhrintu waxay tahay mid kamid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ama ugu muhiimsan ee qofka aadanaha laga doonayo inuu sameeyo diinteena suuban islaamka ana aad bay u boorisay oo markay soo degtay ayadii ugu horeysay soo degtay nabi Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa haatee maaragtay kusoo kordhigtaa waxay ahayd mid faraysa inuu wax akhriyo halkaas waxaan ka garan karnaa maaragtay in aadanaha ay aad faa'iido ugu tahay marka laga soo tago diiniyan oo ah maaragtay qodob diini ah oo taagan sidoo kale quraanka kariimka ah waa maaragtay wax kamid ah waxyaabaha maaragtay jannada lagu galo adduunyada marka qofka muslimka uu nool yahay aakhira waxa uu raadinayo waa inuu janno galo mid kamid ah waxyaabaha lagu helo raali ahaanshaha Ilaahay jannada lagu galo waxa kamid ah akhrinta quraanka waxay meeshaas sheegaysaa maaragtay in weli tahay akhrintu waxyaabaha ugu muhiimsan aadanaha ee laga rabo in maaragtay uu sameeyo faa'iido ahaanna adduunyo aakhira ay anfacayso sidoo kale marka diinka dhinaceeda laga soo tago caqliga iyo aadanaha loo yimaado wax akhrintu waxay maaragtay faa'iido u tahay waxay korisaa maaragtay maskaxda oo qofku waxa lagu sheegaa oo Soomaalidu tiraahdaa waxa aad akhriso ayuun baad maaragtay garan kartaa ama aad maaragtay qeexi kartaa sidoo kale dhinaca caafimaad ahaan kulay su'aalaha inay u imaan doontaa laga yaabaa laakiin caafimaad ahaanna aad bay muhiim ugu tahay wax akhrinta guud ahaan noloshu maaragtay marna kama maaranto inuu qofku wax akhriyo oo marba aqoon kororsi mar waa maaragtay waa ka maskaxdiisu ay ku korayso mar waa maaragtay wuxuu ka helaa eray bixinna fiican oo badan oo aanu haynin wuxuu ka helaa cilmi badan oo uuna maaragtay si kale ku heli lahayn haddii aanu wax akhrin lahayn haddii xataa iskuul aadi lahaa oo 4 sano iyo 5 sano iyo 10 sano wax baranayo haddaadan adiga ahayn qof wax akhriya cilmiga maaragtay waa wax kooban waxa laga soo helo iskuulada inta kale waxay yihiin waxaad maaragtay adiga akhrisa ama aad baarto marka muhiimad aad u ballaaran oo maaragtay aan marna eray iyo laba lagu soo koobi karin bay aadanaha u leedahay markay timaado wax akhrinta faadow xagga kan waxaa ka cad in marnaba uusan aadamiga ama insaanka uusan akhrin la'aanteeda uusan gaarin horumarka maanta la joogo marra waaxid haddii aan sidaa u ognahay ma ku dari karnaa wax akhrintu caadi maalmeedkeena nolosha wallaahi horta waa ku qasbannahay si guud oo ku qasbannahay inaan ku darno nolol maalmeedkeena intay doonto maaragtay qofku waxa xanibi kara qof walba limitation iyo xadad buu leeyahay oo maaragtay waxyaabaha xaniba intay doonto maaragtay xanibaadeena iyo waxyaabaha celin kara hala ekaato laakiin waxaan ku qasbannahay sidaad Idriso adiga laftigaaga ka dhawaajisay inaan maalinlaha u sameynayno ama day to day activitieska oo sida joogtaha aan u sameynayno inaan ku darno wax akhrintu sababtoo ah faa'iidada intaas la eg iyo ka badan bay leedahay in maaragtay wax la akhriyo marka haddii qofku noloshiisa oo dhan ay ku dhisan tahay adduun iyo aakhiraba
annagu ummad muslimiin aan nahay adduunyada kaliya uma noolin aakhiraan u noolnahay adduun iyo aakhiraba hadday ku dhisan tahay inaan wax akhrino Cidruusow waxaa la dhihi karaa maaragtay waxaan u noolnahayba mararka qaarkood inaanan dembi noqonin baan u malaynaa wax akhrino marka waa qasab in maaragtay aan ku darno laakiin waxay ku xiran tahay hadba qofka jadwalka uu haysto sida wax u akhrin karo iyo sida maaragtay uu firaaqo u heli karo oo ku xiran nolosha maalmeedka caadiga ah maaragtay uu ku jiro oo maalinlaha ugu jiro waqti yar hadduu helo ama schedule-kiisa hadduu hagaajin karo intuu hagaajiyo uu ku daro ilaah weegiiba hal mar inuu wax akhriyo in maaragtay laga heli karo schedule-kiisa marka la fiiriyo nin wax akhriyo in laga dhex heli karaa aad bay muhiim u tahay waxayna muhiim ugu tahay waa ku celinaa adduunkaaga iyo aakhiradaada muhiim u tahay Fuaado waa maasantahay mar kale waxaa qeexday wax akhriska iyo waxtarkiisa waxaa tilmaantay inay nolosha bini aadamku aysan marnaba ka maarmaynin in waxyaabaha aan joogtada u qabano kan qayb dabcan aan ka dhigno wax akhrintu marka inaan intaas dabcan markaan isku helno inuu qofka bini aadamka wax akhriyo maxay uga dhigan tahay waxay uga dhigan tahay nolol waxay uga dhigan tahay aqoon kororsi waxay uga dhigan tahay maaragtay يعني information u baahnaa oo ay tahay maaragtay in qaarkood loo safro in maaragtay buug yar oo kula yaalo aad ka heshid waxay ku sheegaysaa maaragtay waxa inaad akhriso inay ku xiran tahay inaad maaragtay xogaha aad heli karto iyo inta garaadkaagu uu maaragtay la ekaan karo iyo inta maaragtay qaab fikirkaaga iyo maaragtay adduun aragaaga oo dhanba maaragtay uu noqonayo inay ku xiran tahay marka waa muhiimadda ugu koobaad ee nolosha waxa ugu muhiimsan qofku inuu maaragtay si guud u sameeyo ay tahay inuu wax akhriyo marka lagama maarmaan okay Fuaado waan ognahay dunidu meesha ay ka joogto wax akhrintu meesha ka joogto in wax la akhriyo inay ka dhigan tahay hal abuur cusub iyo curin cusub iyo maanka bini aadamka la shiilo kadibna ay ka yimaadaan wax qurux badan adduunkaba wax ku soo kordhiya haddaan u nimaano dadkeena Soomaaliyeed waan isleenahay bal mawduucan wax yar bal malaha aan ka gelino aan la falgalno iyagu akhrintu kuma fiicna niyo Soomaalidu waxa la yiraahdaa waa maaragtay bulsho hadal oo ama oral society oo dadku maaragtay inaan hadalnaan ka jecelnahay inaan wax akhrino taasaa keenayso maaragtay ama budligu waa in aanan waxba akhrinin laakiin hadda waxaad moodaa in ideadaas ama fikirkaas xogaa isbedelayo ha keento teknolojiyadda ha keento maaragtay ummaddu inay wacyigooda iyo waacigooda uu isbedelay oo qaab fikirkooda laftigooda isbedelay oo dadku ay wax barteen taas waxay hadda xogaa yar aad moodaa inay dhinaca kale u rogayso ama ay si u yara bedelayso aragtida ah in Soomaalidu ay yihiin bulsho hadal laakiin si guud saameynta maaragtay ah in Soomaalidu akhriskoodu uu yar yahay waxay u noqonaysaa aragtidaas ah in maaragtay dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad hadalkana ay ka jecel inay wax akhriyaan taasna ay keenayso maaragtay in ay doonaan ama waxay raadiyaan ay tahay hadal iyo maaragtay iyo wax la mid ah ama maaragtay inay TV daawadaan ama waa un hadalkii si kastaba hadalkay ka jecel inay wax akhriyaan marka waxay keenaysaa maaragtay ama waxa keenay in ay noqoto akhriskoodu u yaraado marka waxay noqonaysaa dabcan aragtidaadu Soomaalidu waa bulsho hadal oo aan ku fiicnaan qoraalka iyo bulsho hadal oo aan ku fiicnaan macnaha akhriska Soomaalidu inay wax akhriso iyo inay wax qorto waxay ka darato inay hadasho marra waaxid ilan wixii la qoraal la akhriyaa haddii qofku inuu wax akhriyaa ka hor yani inaad qoraan noqoto waa inaad wax akhriso horta marka hore inaad wax akhriso oo maaragtay in muddo wax soo akhriso waxaad soo akhrisay wax ka fahmaysaa qaabka wax loo qoro iyo sida markaas imaanaysa qoraannimo horta halkeeda dhigba xagga in wax la akhriyo يعني Soomaalida waxa ka xadeynaa ama yani joojinaya ama u yaraanaysaa waxa waaye inaan nahay badankayagu bulshada laakiin waxa moodaa inay xoogaa yar hadda si maaragtay isu soo bedelayso welise xadigii loo baahnaa weli lama gaar waayahay Fuaado waa maasan tahay weli daawadayaal waxaad daawanaysaan dabcan muuqaalkeenii aan uga hadlaynay dabcan wax akhriska Soomaalida iyo kaalinta maanfurka aadanaha oo dabcan marti igu yahay wana iga qayb galay saaxiibkay Fuaad Cabdirasaaq isla mawduucaas ayaan weli ka hadalkiisa ku guda jirnaa Fuaado dhanka kale hadaan eegno dabcan khubarada qaar waxay qabaan inuu jiro xiriir dabcan ka dhaxeeya akhriska iyo caafimaadka aad iyo aad waruta maaragtay caafimaadka iyo akhrisku aad bay isu maaragtay isu kabaan markaad fiiriso caafimaad ahaan oo waxaan maaragtay hore usoo sheegnay in wax akhrintu ay u fiican tahay ama ay furfurto maskaxda halkaas waxaa meesha ka baxaya markaad buugga wehel ka dhigato in depression waxaan ay dhahaan xanuunaha hadda soo baxay oo Soomaalida waliba aad ugu badan in maaragtay ay meesha ka baxaan oo
qofku waxa ka walwalo waqtigii uu firaaqada haystayba wuxuu sameynaa inuu wax akhriyo marka waxa imaanaya inaad maskaxdaada dib ugu noqotid inaad maskaxdaada dib u rugtid bixin kale waan isticmaala maaqa inaad maskaxdaada dib u rugtid oo adiga aad isyaryaraysato yaa meesha ka baxayso sababtoo waxaa waaye waqtigii aad hesho waxaad samaynaysaa buuggaasaad yaryaraysanaysaa buugga markaad wehel ka dhigato so marka meeshaas waxay kaa kabisaa caafimaad ahaan in xanuunadaas maaragtay ay yareeyaan inta badanna dadka maaragtay aadka wax u akhriya ama dadka wax akhriya wax ka qorana aad maaragtay usoo xigtaan in fact sidoo kale waxaa maaragtay u fiican tahay wax akhrintu oo maskax ahaan maaragtay marka laga soo tago waxay inaad wax akhriso tusaale ahaan xanuun iyo waxba maaragtay qofka wax akhrinta jecel ama wax inuu baaran raba yani wax akhrinta iyo wax baarista iyo wax qoristu waa waxyaabo isku sidkan inta markaa u fiirisid Cidrusow maskaxdayda marka aan lafsiga hadda si uu barbaaray xanuun oo kale markaad aragto ama aad wax xun soo kordhaan oo bini'aadamku day qofku waa bukaa haddii waxay caawinaysaa inaad adiga baartid dad ma ogtahay markii hore aad ahayd dadka wax baaro oo wax akhriyo inaad iska fiirisid horta bal waxaan maaragtay waxay keenaysaa in walwal badan uu keeni lahaa ama khatar badan oo maskaxdaada ku keeni lahaa xanuunkan shakiga waxay dhahaan Soomaalida kugu imaan lahaa in meesha uu ka baxo oo ah warbal horta waxaan saan waaye adoo og oo nidaal degan tahay inaad dhakhtarka tagtid maxaa ku caawiyay jacaylkii aad u qabtay inaad wax akhriso inaad wax baarto marka qayb weyn bay maaragtay kaga aadan tahay markaad fiiriso caafimaadka waxaan hadal iyo laba iyo maaragtay ku soo koobi karana runtii ma Fuadow gabagabada ayaanu joognaa muuqaalkeena intaan ka bixin su'aal baa jirta aan ku weydiiyo oo ka duwan waanu qeexnay waxtarka akhriska faa'iidada bini'aadamku u leeyahay kaalinta Soomaalida in dadkeenu aysan ahayn dad dabcan akhris iyo qoraal laakiin dad hadal ay yihiin anagu Soomaalida ka mid nahay adif ahaan bal wax akhrintaada barka war aad iyo aad bal mahadsantahay su'aal aad u fiican Cidrusow wax akrintaydu aniga wax waa akhriyaa laakiin wali aniga sidii aan u baahnaa inay noqoto inaan ahayn baan u malayn karaa laakiin dadka qaar haday fiiriyaan waxa laga yaabaa inay dhihi karaan ninkan aad buu wax akhriyaa laakiin aniga wali maaragtay ma dhihi karo sidii la rabay baad gaarka jecel ku jirta wax akhrinta inaan wax akhriyo waan jeclahay laakiin wali waxaan dareemayaa in wax badan ay dhiman yihiin wax badan aad iyo laakiin ku taamaysa inaan buuxiyo aad iyo marra waaxid waya Fuad Cabdisaaq wuu maasan yahay oo dabcan igala qayb galaya muuqaalka kan oo aanu ku lafa guraynay wax akhriska Soomaalida iyo kaalinta maanfurka aadanaha marka ay kororto akhriska waa ku maasantiin daawashadeena Fuad aadan kaga mahadcelinaya aad iyo aad maasantahay Cidruus Maxamuud Iimaan arjeenaya inaan barnaamijyo kale mowduucyo kale ka wada qayb marra waaxid waa maasantiin idinkuna la sii wadaaga muuqaalka kan saaxiibada kale waa maasantiin Thank you.